ay farmaajo iyo wiilasha yaryarka ah meesha la jooga ee dharka gashan dadka ha ku riixina dhinacay ka yimaadeen ha u celinina anigoo og mas'uuliyadda la ii dhiibay inay ahayd dalka inaan ka gudbiyo doorashooyinkii la yaqaanay oo dadbanaa oo la soo maray 2016 oo aan u gudubno qof iyo cod madaxweynaha Puntland isaguna ma caqabad kale oo ka jirta dalka mise waa horumaryaha qaranka keenay in dani diido in doorasho dalkan ay ka dhacdo qof iyo cod ah sababtu waa maxay doorasho qof iyo cod lagama gaaro doorasho dadbanna waa la yaqaanaa wadadeeda sidaas darteed inaan dad kooban loo koobin ama gaar looga dhigin siyaasadda ay noqoto wax daahfuran oo ummadda Soomaaliyeed kulligood ay ka qaybgeli karaan haddii siyaasi kasta uu ku leeyahay anigu waxaan ahay kan mudan kan hadda fadhiyana uu leeyahay waxaan ahay kan qaranka kuwa qaylinana ay ku doodayaan ana xaq leh kan ka soo horjeedana uu leeyahay ana gar leh shacabku maxay leeyihiin waa su'aasha isweydiinta mudan ee haatan loo baahan yahay